taariikhdii sayidka intaana noo bilaabin kulligeed bal dagaalkii koofi dulmadoobe dagaalka la yidhaha dulmadoobe dagaalka dulmadoobe ama ruuga siduu ku bilowday bal nooga sheekee yeelay haye anigu waxaan anagu duulimaad waa maqnay waaye anagoo duulimaad ku maqan baanu oo dhow oo ka duulay meel la yaado geeda muraale daarta geeda muraale baanu joognay waxaan rag daar ah sameeyo jooga haye daar baad dhisiiseen haye ma sawiraysaa isagaa ku sawirayo haye ma garanayaa haye daartaa geeda muraale aan joognay annagoo col ku maqan baanu waxaanu aragnay meel xoola lala maray markaasaan war xoolaha kan awr laga keenay webiga kan xoolo laga keeno sayidkii loo wado baa col helay col huwana reer nimanka dhulbahantiya isaaqa oo wada jiro burca jooga baa helay safarkii waa awr waa dhar iyo weeyi waxaa soo diray khaliif miya khaliif baa soo diray shiikh markaasaanu waxaanu annagoo geel wadanna oo ka keennay huwan ka helnay burco iyo ka keennay oo dhowr iyo 30 nina oo luga baanu aragnay raad raada kanu waa maxay raadkii baanu xagga iyo xaggaba u raacnay waxaanu u tagnay rag jiifa mayda oo daraawiirtiya raggii baanu garan walaahi waa hebel iyo hebel waa hebel iyo hebel raadkii baanu ku dhacnay xoola awrta raadkii baad ku dhacdeen raadkii awrta dad raggii iska dhaafteen maydkooda iskaga tagnay baanu dib u qaadnay xoolihii lala tegey intooda goortaanu wadnay waanu ka soo noqonnay waxaan wadannaa geel 200 iyo badha waxaanu nahay 20 nin geelana waxaanu ka keennay nimankaa awrta la tegey huwan baa ka soo dhacay huwan waa garanaysaa oo waxaa loo wadaa haddii alla ku dariiqaanu ku wadnaa oo reer daareed baanu goortaanu waxaanu wadan waxaa meesha noo sidannaa waxaanu soo qaladnay goolado kumbis iyo subagyo 12 weela oo subaga iyo kumbiskii baanu sidannay annagoo markaa dignay oo ka soo noqonnay raadkiina mise waa niman faras ah oo ka yimid gurigiina cabdulla xasan oo loo sheegay awrtaa in la dhacdo niman tegey u qayla gees tageen huwan dhacday waa cabbaas oo muuse waa faarax cumar waa xirsa cartan waa cabbaa waa raggaa faras bay ku joogaan bardo waa ismaaciil mare waa ku jira wargee mahaysaa raadkii wakaa annana gaari weyn raadkii bay cagta u saareen goolay meel dhex joogeenoo gaari waxay yidhaahdeen intaannu maqannahay geela iyo meesha aan nagu sugo waxaanu barnaamijkan sugi kari maynee geelayna waxayna ka qaadanayaan aan geelayna la tagno oo la qabanno dariiqadii goortay cabbaa raadkii waday gaari waayeen bay soo noqdeen mise meeshii waa maragtay raadkay geelayagay soo raaceen laas magale ma taqaan mayaa taqaani laas magale oo gambare ma taqaani waa maqla gambare meel ku dhow annagoo marayno geeli wadano bayniyo war waa sidee raga iyagii geela watay jeedal bay la dhaceen war oo qorgii naga dhigeen maxaad nooga timaadeen geela naga wadada waxaanu niga wada dhiga labada nin oo meesha ka maqadina 2 gabdhood oo walaalkay dhalay bay qabaan walaalkaa maxaa la ohan jiray waxaa la ohan jiray cali nuur bay qabaan waa cabbaas oo musiye faarax oo cumar waa reer sheekh xasan nuur midnu waa reer sheekh xasan nuur waa faarax oo cumar midnu waxaa dhashay gabar reer sheekh xasan nuuro waa nin dhulbahanta cabbaas oo muse waa ninka ay ka tiqiin geeli baa meesha waa geer dhalay mise colkii koofil dili doona baa soo ama baxay oo xaggiina cabdulla xasan ka yimi oo qulqulaya
colkii baan musraacnay intaanu geeli sii dhiibnay halkii baad horay colkii baan musna raacnay oo dib u noqonnay maxaa ka dambayn goortaanu maraynay meel la yaado kelid ma taqaanin maqal kelid كلت oo nidhi aan seexanno soo maantii bay ilaaladoodii baana aragtay goortaanu kelid maraynay fiidkii oo nidhi aanaan seexanno bay oo ka shideen dushayadaa buur la yaado ulasan miyaa taqaanin تبقى ولا سنة دويدي هراء توريين ahey ulasan bay ka shideen dab ilaaladoodii bil waxay u digayaan xoolihii حواليها waa buur dhaladii bul ma ka siiyeen goortay bulshii ka siiyeen baan la yidhi bugga seexan mayne markaasay xoolihiina meeshii xooluhu joogeenna bul isna dab laga shiday markaasaa waa taasoo layna aragiye buggaan iso weeraro فرديه rug iyo farduhu waa 500 oo faras ah فردها دراويشة fardaha markaa meesha maraya waa 500 oo faras kun luga oo dable 1500 baa markaa dabku weyi waran la imisaa waranuhuna in la eg waranadaa sii badan salaada markay waxaanu wadno oo orodno oo guculayno oo fardaha dabada lugta lagaga wadaba markii waagu dhag yidhi maanu meeshii ay ka dulmadoobe weli laislama gaarin dulmadoobe maya dulmadoobe haa lama gaarin waa meeshii bay ka qaxeen dabka ay ka shideen dabka shadeen oo xoolihii dariye ka galeen waxaanunu dabkiioo guryihiioo maran ka sii dabayacday waa la weeraray iyagoo hoganaya oo yidhi waa nabadee colkii oo ay saddexdii colkii waayeen wa ay tahay hal barqa ah waa nabadee iyo xoolihii la daayey oo xoolihii hoganayaan oo awrtii aan la furin bug baanu weeraray وقادين wixii baanu soo rognay حواليه wixii baanu soo rognay قالي حواليها قاعدين ولي ولا هايستان ما يقد بني ma kuwama هو xagee ka tagee iyagu tagee oo gale awr ba iyadoo gale ninka la yeelo barra bulaale waa niman la u ahaa ciidan midka ah nimankayda caadi jirin markaa waa nimanka awrta dhacay wax horihii lasoo rogo oo lasoo rogaba kobtii baa la gebagebeeyey habeenku laba og yahay iyo barqada ka dhexooda xoolihii lasoo rogay beer maaragtay beer baa weer ku gaadhi wax la keenaba halkaasaa la gebagebeeyey xoolihii habeenkii markaasaa la yidhi naagay yidhaahdeen waxaa col baa tegadow waxaa tagtay niman baxsadadoo waa qayla geys tageenoo waxaa imanaysa berri idiin imanaya ama caawa gaalo koofile oo koofil ku jiro aan marna idin kafi maayo koofi waa nin diran habeenkii baa meeshii la gebagebeeyey markii waxaan habeenkii la gebagebeeye baa nalo imanba habeenkii buu nagu dhaafay kuure isagii يقول حواليها هايستان annagoo xooli haysan markaasaa la isqabto waxaa la yidhi ragna wuxuu yidhi aan miso colka iyo xoolaha ragna wuxuu yidhi aanu waa beriisan waa la isqabtay raggi markaas idin gudub weli waa joogaa isagii baa lala hadlayaa colkoodii baa wada hadlaya raacdadii koofil iyo raggii xoolaha lahaa baa wada hadlaya markaasaa la yidhi maxaynu yeellaa waxaa la yidhi ragna wuxuu yidhi aan miso ragna wuxuu yidhi anuu waa beriisan markaasaa la yidhi waa soo dareerinayaan xoolu beray soo kacayaane iyagoo raran hanugu yimaadaan haynoo yimaadeen iyo gadhigaankoo qotoma ilaa waxay xagaafkay xagga iyo xaggu waa buuro marin maayaane xagaafkaasay soo qaadsiinayaane aan u fadhiisanno 250 dhallinyaro ah
baa la yidhi xoolaha hor socda xoolaha xoolihii xoolihii baa la deri waan hor soconnaa annana waa wiilal dhallinyaro aanu nahay waa iska cayaarayna waa niman dee aduu markaa waxaa ku jirtaa qolada hor socda hor socda wala hor socdaan ku jiye hor socodkaan ku jiye ilaahu wadaa miyaana been ka sheegi laba nin oo farasa oo annaga mid waa adeerkay aabbahay baa la yidhi la oran jiray jaamaca boos jaamaca fudhalle jaamaca boos oo dee nin sayidku jeclaa adeerka aabbaha la dhashay baa la yidhi bal dhugta haga dhabbada waa noo qariyeen gaalkiiba namaba sheegin waana dhaafeen oo colka xoolaha badan iyo raggii dambe dib ugu noqdeen annana xoolahan iska hor soconaa dhallinyaro iska boodarabaynayna waa iska boodarabayna niman iyaga oo rayada oo aan badnayn soo buu yidhi ii soo mariya gaalku war ii soo mariya oo xabada ku rida annagoo iska cayaarayna bay baxaqaqaqa dushiina ka yeedha horta yadiina saareen saanu geedooda soconnay qaqaqaqa annana waa ku ridno waa carar ta wuxuu noo jiraa makaaladda goortaanu ay doc isaga baydheen markaasuuna mariyey galdhigaankii inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun iska daba dhac rabdaade maxaa jiiba maxaa gegan maxaa dhaaf waa xagaafkii adigama markaasay kugu dhegtay markaasay igu dhegtay ballan halkaa nin iiga xigi docda xaggiisa xiga markaasay igu dhegtaan jiifaa markaasaan sarwaal baan ku jiray intaan halkaa gacanta geshay ay bal xiniyaha iyo bal inay dhaqan yihiin halkaasay intay ka dhacday intay ka baxday xiniinta hoosteeda intay gudubtay oo taa ka dhacday intay ka baxday xiniintaa kale hoosteeda xanjaadkaa bisa ka baxday markaasaan arkay carrada kuu dhaqan tahay xiniyihiina dhaqan yihiin baan dhiiggii soo qaatado dhiiggaagii bisa ku dhaafin baad leedahay aan idhi yaadan dhigidin ninkii wiilkaa cunay dhigidi maayo aan yaadan wa sulxin dhiiggii baa fuuqsaday soomaali kaga quus saasaan u jifaado jiibkii xabaddan markaasaa colkii badda soo galay allah allah badana soo galay subxaanahu waa qaadi allow moogtahay saasaan idhaahda sidaa eeg saasaan waa dhaawacay mata inaan jiifo waa saasaan idhahdaa oo toosa oo jiifa waa jiifa oo toosaan idhaa madaxa goormay qaadan goormay madaxa qaadan tii hore goormay madaxa subxaan waa qaadi wax la wado halkaan niman isagoo iga xiga oo iyagiida baa yidhi wallaahi weli dhaawacan halkaa u xigaa ragga kale maydka jiifa halkaa cajaa'ib baa ugays docahayga halkaa baa midiyey iyagii soo kuga kor ku jiraayey wallaahi ninkii weli meesha buu jiifaa aniga waa niman iyaga ah waa colkii aan isdiriinayn meeshii buu jiifaa ninkii markaasaan arkay iyagoo soo socda markaasaan intaan jeebkii ka toos madaxa la kay qoreygay intaan qaatay cabayo iri ninka kan kugu soreeya kug ku sii markaasaan eeg yani balada inay qori sitaan iyo inay waran sitaan kala hubso waranka xanuun kulule xabaddu arkaynayaan lagugu ogeyn xanuun sidaasna ma waa un dhacday laguma oga xanuun markaasaan arkay mise sow kuwa annaga ah oo ku bur dhexdii fadhida ba
kula booda iyagii saaray buuga oo mid ku ligtay markaasaa nimaanu walaalanahay halkaa iga soo galay aslaa idhi u sii dhabeeyey isagoo ka soo baxay halka igu soo bayay aan war ma jaban tahay aan bal dhugo niman halkana niman halka jiro labada yaaba waa tahay dhugo hebel dhugo mise waa mayd markaasuu marihii ku hagaajiyey jiifuu iska jiifa janna aadeen markaasuu aniga ma jaban tahay yani markaasuu go intuu jeexjeex sagaal baana ku dhacday sagaal baa ku dhacay xabadooda baadinka saraxa uga dhacday sagaalkuba xagga u baxay markaasa inta la jiifiyey sar halka taab dhiyo lagu shubay ma walaalkaaba waa mise ninka ratiga kugu waa walaalkay ninkii lahaa qaada ninkii lahaa qaada oo dib goortii istiga lay saaray dagaalkii dib ugu noqday waxaan ku weydiiyey dagaalka intiisa kale maxaad kala socotay koofil sidii loo dilay iyo dagaalka intiisa kale sidii laysugu jabay iyo sidii laysu garaacay dagaal jidbaaray burqadii may ahayd xagga waa dul madoodaa sokey burca ka sokaysa waqtigan sheegay burqadii may ahayd libdhaloo soo baxdaan isqabsan aroortii libdhada waa soo baxday casarka markay meesha halkiisa laga dhisay maartay sayidka ملايين كوفي ذات عاد ثم لو ما وارغنا ها ماشي كود كاي ولا سان بارك يجي حولها المرين ودد مرين كريمين الا واجي فاي markaas saddex nin baa diiday saddex waxaan oo maxamuud kiraadi hada cadad mooradi warsame cali duulani xirsa caartan saddexdaasaa diiday in wadada in buurtaa la mariyo kaasay la dhaceen xoolihii wadada eeg koofil waa kaa waa yaallaa halkaasuu yaal halkaasaa xooluhu maraya halkaasaa xoolihii la maraya walley waa ku tuntaan saasay ugu tuntaan markaasaa dhaawacayagii 350 nin oo dhaawaca oo awrtii la saaray la dul hogji oo la yidhi xooluhu way iska qulqulayaan waxaa wada waran leh lugtii iyo wixii ciidan ahaa oo nool ahaa oo dabal ahaa baa hogtay meeshii maydkiisii hoganaya waxaa la gooyey gacalihii waxaa la gooyey qoorihii rakuubtii baa laga lulay madaxii baa la gooyey eeg halkaasay jiifaan oday waa adoo kale halkaa jiifo halkaasaa xooluhu marayaan walayna xabadu riday wixii noolaa iyagana annana kuma ridno iyana ma rida mayd jiifa iyo kii noolina waa iska jiifa daraawiish 350 baa ka dhimatay subaxa 350 baa subaxa go'ay 350 waa ka dhaawacay 360 waa dhimantay 350 waa nal ku qaaday ingiriis meesha nafar kama laaban meeshay wax kagama laaban mid saddex bay yahaadoo labana gooday midna gacan baa lagu yutay career 1670 ma iyaga ma iyagii waxba kamaba hadhinba waxbaba kama hadhin adeer waxaan ku weydiiyey koofil xabadda uu u dhintay ninkii ku dhuftay ma la yaqaanaa mise waxay ahayd xabadaha la iska ridaayey midood baa haleeshay ma wax sayidkii meeshii joogay mise waxay tahay sayidkii wuxuu yidhi baa la yidhi nin hoos yiyey baa dilay cawl gaabi ninka maxaa la ohan jiray cawl gaabi isaguna goobtiibu ku dhintay isagoo waa hoos jiraa weliyakan marka dhaawac buu ku dilay miya cawl gaabi kowdii nin askartiida oo la yidhaahdo
layaalo fardaalo golongol fardaalo golongol oo maxamuud garaada wuxuu yidhi ninkii waxaa dilay xirsi cartan wuxuu yidhi isagoo askartuu ahaa wuxuu yidhi waxaan arkay isagoo ka soo kacay xero daraawiishtii isaguna midna askartuu ahaa midna daraawiishta wuxuu yidhi berigii hore ee soomaalidu isku dhammayd baanu isku filahayn waana isniqin wuxuu yidhi markaasaani baa oo ninkaasoo xirsi cartan u ekaa kacay raggana weligii wuxuu ka diriiri jiray qoorta oy waxaan arkay xirsi cartanoo kacay yani wallaahi ninkaas waa xirsi jeedlade waa ninka kooraha aabbihii saaray dhuurta waa ninka aabbihii saaray kooraha cartan boos waa ninka cartan boos baa dhalay oy markaasaan wallaahi weyna cartan boos waylaysay xabaddii u dhacaysay baa waxaan arkay gaac dhacday mise xabaddii koofiloo go'ay markaasaan idhi alleele waxaa ku dhacday xabaddii xirsi jeedlade fardaalo golongol baa odhanahaya fardaalo golongol xabad kale ma dhicin oo ciidanka ingiriis ka tirsanaa ismaaciil mirana waa dilay bay yidhaahdaan ismaaciil mire gabayga iyo buu wata colka yaa watay baa tiraa colka waxaa watay yuusuf dheere iyo oo sayidka xiga waa sayidka walaalkii oo wuxuu qabaa ninkaan lay xirsi jeellade walaashii xaliimo cartan buu qabaa oo ninkaa xirsi jeellada ah walaashiisa hooyayaabay wada dhaleen abbahaas oo muusehan sheegayo faaraha cumar saddexdaasaa reer sheekh xasan nuur ahaa oo xoolaha haddii rag kalaa jirto dagaalka lahaa ragga kale baa dagaalka lahaa isagaasi muqadinimada ragga kalea dagaalka lahaa oo dagaalamayey daraawiish habeenkaasay guul la hoyad jidka markaanu soo soconi alla baa naloo ku gabay faraskii teg ee sayidku u wargiinayey oo qaaday wixiisii iyo rakuubtii gabay baa marka teg marka jidka anagoo jabinaanu maqalnaa raajiitadeenkoo filow duni waa dhaawac baanu nahay raajiitadeenkoo filow dunida joogayni adigaa jidkii lagugu wada jirnaaneeda jahannaba la geeyo adaakhiru jahan nimankii jannuu kacay warbay jariiri shaalle jamacooyinkii iyo haddaad dawartii aragto sidii eebbahay kuu jirabay weli jawaabteed daraawiishtikaa naga madayntan iyo jeerkiidhe ingiriis tabyo waxaa ku dhacay jaxiyo baaruudde waxay noo danduunteenba waajibashadiinniidhe anigana jikra ila helay shalay jahaadkiidhe tugta weerar bay goor barqaaygu jiteeyeendhe jeeniga hortiisay rasaasigaga joojeenhe jiiraanyaday ila dhaceen jiri cabkoodii siday kuugu jecen magliga jaraaracdii sheego bilaawuhu siduu kuu jarjaray jeedharka u muji lafjeclaysigii baa midi jaallow iga daadhi jarjalleeciddii baa wadnaha jeebka soo raqay jeedaaladii baa indhuu kulu jillaadmi jimickaagama helin tuugmadan jariiyo ruuxii markaan duuqiraadaba afka iga jufeeyaan jeedaaladii baa indhuu kulu anigana jikra ila helay shalay jahaadkii tugta weerbay goorbarqay ku jiteeyeen jeeniga hortiisay rasaasigaga doogteen sayidkiina waa jibindhow iyo joobka soo bixi haddaan la istikraarey tolkay laga jishoonaag gabayadaa oo sayidka goormuu tiriyo gabaygaas intaanu sii soconay buu xaggaasoo ku tirshayba imise cashaad sii socotay 12 xoolihii dhacay baad soo dhicinayseen faraskaa idinka hormaray faraskaa naga hormaray oo warka idinku soo celiyey faraskaa waxaan ku yidhi daraawiish waxaan ku yidhi daraawiish 1900 markii koofii la dilay kadib waxaana tiri daraawiish markaasaa ugu dambaysay gacan ay qaadeen saganimo maxaa ugu wacnaa
حق الله في كتم ايه حق الله حق هذا انا من حق يمد حق واحد كتم الذي بقى باروزي ايه وحول بندر مرهين اه صفا مقالة مرهين تمر مرهين بريس مرهين شاه مرهين حلل بيه سيدي برقي قلت حولي سوماليا أبارت تاسو أبارت يا شيء وإن بندر لهين سو شوف ما إنه نقولني تاسو شوف بكسر لا بارو بض مياه لين كحر انجليزكو بض مياه وبدا حق محامي يا نوكن ويا بندر لما تيجي بندر لما يا نسي بندر لما نتيجه ما هو حقيقي خدوقنا علبان النهار سو علمي adeer daraawiish hubku halkee uga imaan jiray wuxuu ka iman jiray waxaa ka iman maare iyo jiri ka iman jiray xagga waa la soo gadi jiray niman uun xagga majeerteenna waxaa ka iman jiray maaraha oo sayidkaa dee la haystay dhinaca sire iyo boqolka iyo markii berigii dambe lala cululay arloo dhan lala cululay daraawiishtu girligaan ma haysan jirtay mada ma helin weligeed ma haysan weligeed ma helin ma girligaan helin karin xagee ka yaa waxaynaya yaa ridayay kaasuba qarriban iyo la qaadi kii aanu helnay kaa maalintaasba kii berigii kii koofii la saariyo oo yaa kiciya qarriban orsaas yaa u haya gabaygii maxaa ka haysaa gabaygii tirada badnaa ee daraawiish laga tirin jiray sayidku tirin jiray ismaaciil mada tirin jiray wallaahi adeer iskaba ilaawinka iska ilowsane ya waaba iska ilowsane wala waxaad adeer bal xoogaa nooga taariikhaysaa berigii dayuuraddu timid dayuuraddii iyo jabkay geysatay iyo goortay timid iyo meelaha goor subaxa midasho baa idinku yeesha midasho soo maaha adu xagee joogta annagoo dariiqadaanu joogno midasho baa joogta annagoo sayidkii yaa iska joogno waagu beriyey waagu beriyey aanu waxaan maqalay mise maxaa jiifamay dhowri iyo 10 baa jiifaanka hore war looguma hayn xagee looga hayn mar baa sarayey geeda yeelo dayuurad bal nin meesha joog jiradoo ah xaggaa laga soo qabtay xagee waddankaaga gaalo gaalada baa yidhi waxaan ka baqayaa bahla yeelo dayuurad inay inoo timaado markaasaa la yidhi yaa garta wixii markii hore waxay soo ritay waraaqay soo ritay waraaqay soo ritay waraaqihii baa sidii nabadeed ay ahayd waraaqihii baa la qaatay goortii waraaqihii lagu siirsan yahay mise allah maxaa jiifa maxaa jiifa oo yaa istibay dabadeed meel walba waa la kala yaacay aduu markii la kala yaacay yaad raacday halkee u baxday waxaan u soo kacay xaggii xoolihii iyo xaggaasoo ma aan soo qixin sayidka wax ma ka raacday may raggii raacay sayidku ma raacay raggii sayidkii waxaa raacay wax yarba cidiba ma raacin waxaan 100 nin ahayn baa raacay inta la soo kacay iyo xoolihii iyo xaggaa iyo la qaatay baa waxaa u timi huwan iyo gaalo iyo gaari waxaasaa dumiday oo cabdille ma taqaan oo cabdille cabdille xasan ogaad gaaraha joogi jiray adeer waxaan ku weydiiyey adeer waxaan ku weydiiyey daraawiish markay jabtay oo dayuuradi jabisay dhibihii idin soo oo la kala qaxay dhibihii idin soo gaaray maxaa ugu daraa oo dhibihii haddii soomaalida soo gaaray haddii nalacay maya daraawiish gaar ahaan haddii dibadda naloo saaray dibadda oo xolihii nala ka qaaday oo raggii la qabsaday oo naagihiina la taxaabtay dadii iyo duunyo gacanta nala ku dhigay dad iyo duunyo nin fiigay maahay gacantaa nala ku dhigay oo nala soo taxaabay huwa nala soo geshay
dadkii la soo taxaabay see baa loo gala waxaa la keenay huwan huwan baa la dhex keenay huwan soomaali harta isaaqii iyo daaro baa la dhex dhigay oo dhex dhigay laakiin wixii rag ahaa ingiriis wax gooni ah oo u raacday oo u qabsaday oo raggii daraawiish ka tirsanaan jiray ma jirin wuxuu qabsaday niman xirsi cartan uu doonayay xirsi cartan iyo seeraar iyo jaamac jaamacse raggaasuu gacanta ku dhigay waa raggii